Assalaamu calaykum soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadli doonaa noqo network engineer. Si aad u noqoto network engineer waxaa u baahan tahay saddex arrin ayaad u baahan tahay inaad samaysid hadduu la yiraahdo. Arrinta koowaad waxaa la yiraahdaa waa inaad dhistaa tiirarka aqoontaada ee network. Tiir markaan ka hadlayno waa sal ama waxaa la yiraahdo base waa inaad dhistaa. Network marka waa maado aad iyo aad muhiim u ah maanta dunida, taasoo loo adeegsado isku xirka kala duwan ee aadanaha meel walba oo dunida ka joogo. Si aad u dhisid marka tiirarkaas waxaa u baahan tahay inaad fahamsan tahay theory-ga ama fikirka ama ra'yiga ah. Kow inaad fahamsan tahay waxaa la yiraahdo history-ga ama taariikhda ay leedahay network ay leedahay inaad fahantid. Xilliga la soo aasaasay 1969kii ujeedadii ugu horeysay ee laga lahaa ee ahayd in la sameeyo research. Sidoo kale inaad fahantid waxaa la yiraahdo types of networks ama noocyada kala duwan ay leedahay network sida LAN local area network, MAN metropolitan area network, WAN wide area network. Sidoo kale waa inaad fahamsan tahay design-ka uu leeyahay network ama design of the networks ama waxa loo yaqaano topology-ga sida star, mesh, tree iyo wixii la mid ah. Isla level 1 haddii aan fiirino qaybta labaad waxaa u baahan tahay inaad aad iyo aad u fahantaa waxa la yiraahdo network concept-ga ama fikradda aasaasiga ee network-ga. Network-ga wuxuu ku shaqeeyaa waxa la yiraahdo sender iyo receiver, loo dire iyo dire. Qof wax diray, qof kale wax loo diray. Marka sidoo kale waxaa jiro waxa la yiraahdo client iyo server. Client waxaa la yiraahdaa qofka adeeg u baahan, server-kan waxaa la yiraahdaa meesha adeeg loogu baahan yahay oo computer data haya iyo computer datada la haya rabo. Marka kuwaas waxaa la yiraahdaa client iyo server. Sidoo kale waxaa jiro waxa la yiraahdo OSI model. OSI model waxaa la yiraahdaa laba computer marka ay rabaan inay xiriiraan. Waxaa jiro 7 layers waxaa la yiraahdo ama 7 layer kuwaas oo computer walba u baahan yahay inuu leeyahay. Level 2 waxaa u baahan tahay inaad dhistid waxa la yiraahdo practice-kada ama shaqada gacanta aad ka qabanaysid ee ku saabsan maadada network. Waxaad adeegsan kartaa software la yiraahdo packet tracer. Waxaad u baahan tahay inaad aad iyo aad u samaysid shaqooyinka badan ee uu leeyahay configurations-ka ama farsamooyinka uu leeyahay switch-ka. Waxaa kaloo u baahan tahay inaad aad iyo aad u barato waxa la yiraahdo router-ka kaasoo mar walba u baahan isagan in la qoro waxa la yiraahdo code oo aad ku qoraysid CLI-ga kaasoo mar walba u baahan tahay inaad ka taxadartid practice-daas. Muhiimadda uu leeyahay marka practice waxaa ka mid ah inaad mar walba xifdisanaatid code-ka sida adigoo ka qoraya madaxaada oo kale. Marka waxaa u baahan tahay inaad baratid initial configuration-ka router-ka iyo switch-ka. Waana level-ka labaad, waana level-ka ugu muhiimsan oo ah inaad qofka la noqoto qof isku kalsoon. Level 3 waa inaad dhistaa dhinacyada kala duwan ee naqshadeynta ee network-ga. Sababtoo ah network lagu sheegayo waa naqshadeyn design lagu sameyn doono local guryaha, dhismooyinka, dabaqyada, sidoo kale kambasyada lagu sameyn doono. Sidaas daraadeed marka waa inaad is diyaarisaa oo aad barataa naqshadeynta waa inaad barataa. Naqshadaha way kala duwan yihiin. Qof walbana wuxuu aaminsan yahay qaab uu ku sugi karo amniga network-gaas uu dhisay. Marka qaar switch-yada kormaray, qaar router-da kasii dulmaray, qaar server adeegsado, qaar waxay adeegsan waxa la yiraahdo firewalls. Marka muhiimaddu weyn waxay tahay in adiga dhisid network lagu kalsoon yahay shaqeyn karta. Waana marka hore waa inaad design-kooda barataa. Design-ka markuu kala duwan yahay. Design-kan qof walba ma sameyn karo sababtoo ah wuxuu u baahan yahay configuration u baahan yahay. Wixii inay isla hadaan, isla shaqeeyaan, isku xirnaadaan. Waxaa loo baahan yahay routing waxa la yiraahdo. Routing-ka sida aan ognahay waa ilaa 3 4 iyo ka badan. Marka insha Allah intaas ku soo kooba. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.